qofkan wuxuu leeyahay markaan kaadiyo ayay shahwo yar iga timaada bilaa dareen ee ma ka qabaysanaya su'aasha jawaabteedu waa nacamha qabayska janaabada laba sababoodba way ku waajibaan inay biyaha shahwadu yimaadaan ama qofku ha dareensanaado ama ayaanu dareensanaan ama ha hurdo ama ha soo jeedo qofka hurdaayi ma dareensano mukallafna ma ah waajibna ma saarabo isagoo hurda ayuu junubi karaa ama biyo shahwadu ka iman karaa inay ka yimaadeen oo uu riyooday wuu xasuusan karaya inuu daalanaa ama uusan xasuusnaynna waa dhici karta caafimaad daraa keeni karta munaasabaad gaaray iman karaan midaan laba celin karinna way noqon kartaa oo salasul maniyi waa ku dhici karaa qofka aan la xajin karin sida kaadidii iyo waxyaabo kaleba ay ugu dhici kartaan la xajin karin in biyuhu yimaadaan say dooniba ha ku yimaadaane way ku waajibtaa in galma timaadana way ku waajibtaa haddii ay galmo iyo xiriir gogoleed yimaado oo dhex mara rag iyo dumar qabaysku waa waajibaya ama biyo ha yimaadaan ama yaana iman hadday biyihii shahwadu dariiqoodii caadigaa ka yimaadaanna qabaysku waa waajibaya ama ha jiifo ama ha soo jeedo ama ha dareemo ama yaanu dareemin masalada wax kala qaada ma laha waxaa laga hadlan waa haddii ay ka timaado halkii caadiga ahayd meelaan ahayn oo dhabarka wax noqda iyo ay biyo ka yimaadaan waye maahane marday meesheedii caadiga ka timaada keliya laakiin saa'ilka waxaan dhihi lahaa markii kaadida waxyaabo aan shahwo ahayn oo yimaadaa jira oo wadiye la yidhaahdo biyo yaroo aan aad u caddayna iska hubsada uun biyahani inay shahwada yihiin hadday shahwada yihiinna weysada ay ka jabo qabaysku waa ku waajib wabilaahi towfiiq